Asalaamu calaykum. Warbixinteenan maanta waxaynu ku qaadaadhigi doonaa xaqiiqooyinka iyo qiyaasta ku saabsan dalka Turkiga, waddanka lagu yaqaano quruxda dalkiisa iyo sidoo kale taariikhda hogaamineed ee uu ku lahaa caalamka. Haddaba waxaynu si gaar ah u dul istaagi doonaa quwadda milatari iyo awoodda dhaqaale ee uu leeyahay dalka Turkiga. Waddanka Turkiga ayaa sanadadii lasoo dhaafay waxa uu galaangal dhaqaale iyo milatariba uu ku lahaa qaaradda Aasiya iyo sidoo kale qaaradda Afrika, oo ah labada qaaradood ee uu ku yaalo. Waxa uuna wadamo badan oo ka tirsan labadaasi qaaradood la yeeshay xiriiro caalami ah. Waxa uuna ka taageeray in ay kor u soo qaadaan dhaqaalahooda iyo cududooda. Wadamada uu Turkigu taageeray waxaa ka mid ah waddanka Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka Liibiya. Dhanka Aasiyana sidoo kale waxaa laga dareemayay dhaqdhaqaaqiisa gudaha Syria oo uu daris leeyahay. Haddaba dalka Turkiga waxaa xilligan loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Turkiga. Waxa uuna 100 sano ahaa xaruntii khilaafada Islaamka oo u dambeysay markaasi. Mustafa Kemal Atatürk ayaa aasaasay dowladda Turkiga kadib markii ay dintay dowladdii Cusmaaniyiinta, sanaduna markii ay ahayd 1922. sanadkaasi oo la casilay sultaankii ugu dambeeyey oo ahaa Sultaan Cabdulxamiid. kadibna 2 sano ka bacdi oo ku baagnayd sanadii 1924 ayaa uu bedelay Mustafa Kemal Atatürk hanaankii dowladdii Cusmaaniyiinta. Waxa uuna ku dhawaaqay in Turkiga maalintaa wixii ka dambeeya la odhan doono Jamhuuriyadda Turkiga. Waxaana hoggaanka u qabtay Mustafa Kemal Atatürk sanadu markii ahayd 1923 ilaa uu ka geeriyoonayay 1938. waxaana intii uu xilka hayay uu hirgeliyey nidaam cilmaani ah. waxaana uu ku soo rogay waddanka Turkiga hirgelinta dhaqamo badan oo reer galbeedka ah, isaga oo arrinkaasi kala dan lahaa in waddankiisa Turkiga loo ogolaado inuu ka mid noqdo midowda Yurub. sidoo kale Mustafa Kemal Atatürk waxa uu bedelay fartii carabiga ahayd ee halkaasi laga isticmaali jiray, isaga oo u bedelay farta Laatiinka. waxaana ilaa maanta laga isticmaalaa Turkiga farta Laatiinka. sidoo kale Turkiga waa waddanka 37aad ee ugu dhul ballaaran caalamka, iyada oo 4 jihaba 3 jiho ka mid ay ka xigta bad. dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 82 milyan, halka dastuurka dalkuna uu ogolaanayo xorriyadda caqiidada oo looga jeedo inuu qof waliba geli karo diinta uu rabo. dadka Turkiga ku nool waxay u badan yihiin muslimiin, halka lagu qiyaaso inay ka yihiin 98%.